madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa caawa Isniin ah ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada. Golahan ayaa ka koobnaa 45 xubnood oo isugu jira 18 wasiir iyo 18 wasiir ku-xigeen iyo 9 wasiir dowle. Waxaana warbaahinta u akhriyay agaasimaha warbaahinta dowladda. golahan wasiirada cusub ayaa muddo shacabku ka warsugayeen. Madaxweyne Dani ayaa horey ugu darsaday soo magacaabidooda waqti dheeri ah, balse caawi ayay noqotay inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada. bismillaahir rahmaanir rahiim. xafiiska madaxweynaha dowladda Puntland xeer madaxweyne lambar Eberhal February 10/2019 kuna saabsan magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda Puntland. madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8aad faradiisa 5aad markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland markuu tixgeliyay baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dowladda Puntland oo aqoon karti iyo waayo-aragnimo u leh xilka loo egmaday markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda cusub wuxuu xeeriyay magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda Puntland oo ka kooban wasiiro, wasiir ku-xigeenno, wasiir dowlayaal waxayna kala yihiin sidaan golaha wasiirada cadaaladda iyo arrimaha diinta Cawli Sheekh Xaamud. lambar 2 arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad. lambar 3 wasiirka amniga iyo dhiidha-aarta Cabdisamed Maxamed Galan. lambar 4 wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal. lambar 5 wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqafaar Cilmi Xaangi. lambar 6 wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdulaahi Maxamed Xasan. lambar 7 wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan. lambar 8 wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Axmed Bashiir Muuse. lambar 9 wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdi Cismaan Machiino. lambar 10 wasiirka howlaha guud iyo garoomada Xuseen Cismaan Lugadoor Gabili. lambar 11 wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Aamino Cismaan Xaaji Jaamac. lambar 12 wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cali Xasan Axmed Sabaarey. lambar 13 wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Cismaan Aadan Fiisigis. lambar 14 wasiirka deegaanka beeraha iyo waraabka Ismaaciil Diiriye Gamaadiid. lambar 15 wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Cabdulaahi Cabdi Xirsi. lambar 16 wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Faarax Maxamuud Awaash. lambar 17 wasiirka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Jaamac Faarax Muuse. lambar 18 wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan. haddana waxaan gelaynaa wasiir ku-xigeenada. lambar 1 wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha diinta Dr. Maxamed Cali Faarax. lambar 2 wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Cabdiweli Mire Xirsi iyo Maxamed Musadaq Maxamed. lambar 3 wasiir ku-xigeenka amniga iyo dhiidha-aarta Yuusuf Maxamed Ismaaciil. lambar 4 wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cumar Xasan Fiqi iyo Yaasiin Ibraahim Ciise. lambar 5 wasiir ku-xigeenka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Mire Maxamuud. lambar 6 wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare Mukhtaar Maxamuud Xasan Jayte. lambar 7 wasiir ku-xigeenka caafimaadka Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Xirsi. lambar 8 wasiir ku-xigeenka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Maxamed Xuseen Xaashi. lambar 9 wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda Yaasiin Cartan Maxamed. lambar 10 wasiir ku-xigeenka
hawada iyo wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoomada Sucaad Saalax Nuur. lambar 11 wasiir ku-xigeenka haweenka iyo horumarinta qoyska Saharo Cabdi Xirsi. lambar 12 wasiir ku-xigeenka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax. lambar 13 wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Cabdiweli Saad Cilmi. lambar 14 wasiir ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Ciise iyo Faa'iiso Cali Ismaaciil. lambar 15 wasiir ku-xigeenka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Mustafa Daahir Aadan. lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdikhaalid Maxamed Maxamuud. lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdikhaalid Maxamed Maxamuud. lambar 17 wasiir ku-xigeenka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cabdiraxmaan Xirsi. lambar 18 wasiir ku-xigeenka tamarta macdanta iyo biyaha Maxamed Bashiir Cabdulaahi. wasiir dowlayaasha wasiir dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka Saalax Xabiib Jaamac. lambar 2 wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Axmed Kulan. lambar 3 wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Maxamed Cabdulqaadir Cismaan. lambar 4 wasiir dowlaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Caydiid Ibraahim. lambar 5 wasiir dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdulaahi Xasan Rooble. lambar 6 wasiir dowlaha caafimaadka Sayid Cumar Guuleed. lambar 7 wasiir dowlaha duulista hawada iyo garoomada Maxamed Xasan Killi. lambar 8 wasiir dowlaha deegaanka beeraha iyo waraabka Cabdirashiid Cali Geelle. lambar 9 wasiir dowlaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdiqani Geelle Maxamuud. xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu saxiixo madaxweynaha dowladda Puntland waana u saxiixay Dr. Siciid Cabdulaahi Dari madaxweynaha dowladda Puntland. golahan cusub ayaa ay kasoo muuqdeen haweenka oo helay hal wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen. sidoo kale waxaa kasoo muuqday dhalinyarada iyo xubno xilal kasoo qabtay xukuumadihii hore ee Puntland soo maray. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle, telefishinka caalamiga ZNA Somali TV, Garowe.